وهجاج بري وحا وعالمku xusaya maalinta caalamiga ah ee buugga iyo dhowridda xuquuqda fikirka waxaana sanadkii labaad munaasabadani ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay xiran yihiin inta badan iskuulada iyo goobaha waxbarashada oo dalal badan oo caalamka ah safmarka fayraska corona dartii haddaba maxay tahay ahmiyadda ay leeyihiin buugaagta iyo in dadku ay wax akhriyaan ama wax qoraan gaar ahaana xilligan lagu jiro xayiraadaha waxa kale oo aynu eegi doonaa caqabadaha dhowridda xuquuqda fikirka qofka waxaa barnaamijka caawa nagala qaybgalaya Zainab Aadan Sharci oo ah qoraa iyo macallimad iyo Cabdiraxmaan Abtidoon oo isaguna jooga magaaladaasi Oslo labadiinaba soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijkeedin kala nagala soo qayb gashaan aan ku bilaabo Zainab waxa tahay qoraa waliba buugagta caruurta ayaad qortaa ahmiyad nooce ah ayay dadkeena gaar ahaan caruurta iyo waalidkaba u leedahay maalintan caalamiga ah ee buugagta عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أدبان يدين سلام يا دمانتين إنتينا BBC مثلثة إنتا إن الدعوة السبع أهمية دباد وحيوي ديسي أهمية دا أي لا هاي مثل أهمية دا أي دقصم عليه دولا أهمية دا أي لا هاي رنتي ومد آد وبلارن وحنا نوغو أرن كاريا إنو يهي أساسي سيدا منتظر يو مقارنة سيدا قوري يو هوي يو أي أساسي maadaama uu yahay aqoontu ay tahay aasaaska waxbarashada ay aqoontu tahay de akhrisna waxay tahayba sayfkiinde laga bilaabi lahaa ayuu akhrisku yahay buugtu aniga xaggayga ahmiyaddaas ay leedahay marka laakiin dadkeenna aynu usoo dhacdhacno the oral society dad xagga hadalka wax isugu sheega ayaa laynagu tilmaamaa inaynu ahayn marka buugtii waxaad moodaa dee wax mar dambe soo gaaray inay yihiin khaasatan markii dee farteena la qoray 27-kii kadibna burbur ka dambeeyey waxaad moodaa inay dad badan aanay fursad ay wax ku akhristaan aanay helin sababo badan aawadeed aad iyo aad Zainab u mahadsan tahay bal aan Cabdiraxmaan u tago Cabdiraxmaan adiga qudhaada cilmi baare ayaa tahay buugagtana waad qortaa laakiin waxaa maalinta beri sidoo kale la xusaya xuquuqda mufakirka oo iyaduna dhibaato ay ka taagan tahay ee waxaan la yiraahdaa copyright-ka Soomaalida kaalin intee la eg ayay Cabdiraxmaanow ay ka munaaqashootaa ama qodobka ka hadashaa sidiisaba maxamed waad mahadsan tahay bismillaah runtii waa qodob aad iyo aad muhiimadiisa u leh oo doodo badan oo wayadan dambe socda way jireen dadka wax qora iyo sharikadaha wax daabaca intaba ay aad loo qorsheynayay maxaa laga qabta arrintan maxaa yeelay mushkilad weyn oo taagan weeye waxaa jira cabashooyin ah dad ama buug sidiisaba dib u daabacday oo ruux kale u lahaa ama qayb ka mid ah buuggii ama suuganta ma aha keliya boogta iyo waxa uu fikirka u lahaa kulleyba qofkaas dad iska daabacda way jiraan marka xaggee dadkaas noocaasoo kaleeta ah looga ashkatooda waa arrin muhiim ah dalalka adduunka hore umar oo dhan way leeyihiin meel laga diiwaangeliyo buug walbaba hadhowna dee cid kale hadday si qaldan u isticmaasho aad mataqaanaa u raacan karto dhulalka soomaalida haddaad fiiriso waxaa ugu horeeya dalka Djibouti oo barnaamijkaas muddo hore isku howlay guda galay wasaaradda dhaqanka ayaa u xil saaran dad aan u malaynay inay tiradooda badnayn oo Soomaali ah ayaan iska diiwaangeliyay halkaas laakiin su'aashu waxay noqonaysaa markaa ilaa awood intee la eg ayay kula xisaabtami karaan dadkii sida qaldan u isticmaalay waa gartay Zainab aan soo geliyo Zainabay adigu buug ayaad qortay qoray dad badan oo wax qoro oo aan la sheekaystayna waxay ii sheegeen in niyad jabka qabaan inay buug af Soomaali ah ku qoraan marka aad fikirka heshay aad qalin iyo warqad isdul saarayso cabsi intee lag ayaa ka haysa in buuggaaga la iska daabacan doono oo aadan uusan adiga kugu soo noqon doonin والله taasna waa mid meesha ku jirta waana mid dhacdayba buugtaadu khatar markaa sidaa Cabdiraxmaan u sheegay wax maartay copyright ah oo xuquuqda ku dhowraya ama ku toqbanaya ma jiro anigu laakiin baan isku werwergelin waayo halkan ka duuliyay baa ahayd caruurta inaan wax u qoro waad ogtahay oo dee markii qurbaha loo qaxay caruurtii Soomaaliyeed qof kale baa afkii hooyo riixay marka waxaan halkan ka galay wuxuu ahaa caruurta Soomaaliyeed
afkana buugaag ay ka baran karaan u qor maadkii ay waxbarashadaa u fududeyn lahaana u qor marka faqdin caynkaasi iguma jirin waxbaa lagaa hadayaa ah waayo muhiimadda ka weyn dadka gaadhsiin waa gartay aad iyo aad ayaan u fahmay zaynab aan adiga kula joogo baryahan waxaa dhacaysay meelo fara badan oo lagu qabto buug bandhigyo buugaag marka ma la odhan karaa akhriska iyo qoraalka soomaalida wuu isi soo tarayaa mise waxay uun iska ahaayeen xaflado la iska qabsanayay may aad buu isu soo tarayaa waxaanan kuu sheegi karaynuun tirada buugta ee soo baxda sanadkii kumanaan buug baa soo baxay maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad waana wax lagu farxo oo lagu dhiirado oo lagu doogsado laakiin waxay u baahan iyaguna waxyaabihii kaabi lahaa dadkii maaragtay dee qoraalka tababaro badan dee oo qoraalka ku saabsan oo editingka ku saabsan oo soo saarida ku saabsan oo sida hal abuurka dee loo farshaxamayn lahaa artkiisii kaabid badan baa sida loo baahan yahay laakiin maasha allah buug badan baa soo baxday oo cayn walba leh waa gartay abtidoon cilmi baaris ayaa tahay mar kale aan kugu soo noqdo mar dhoweyd oo aan eegayey bogga unesco internetka wax xog ah oo ku saabsan awoodda akhriska iyo qorista soomaalida ama soomaaliya laguma hayo maxaa sabab u ah adigase maxaad nagala wadaagi kartaa intii ay la eg tahay maxamed waxaad soo qaaday carwa boogeedyada lagu qabto geyga soomaalida min jabuuti kasoo bilaaw ilaa iyo kenya iyo inta udhexaysaba oo lagu qabtaa sanad walbaba maxay kordhiyeen arrintaas arrin ka muhiimsanaa jirta aniga aan arko oo ah naadiyada akhriska reading clubs waxa la yidhaahdo ee laga furay meel walba oo ka mid ah dhulkaas soomaalida waxaad arkaysaa dhalinyarada inay iyaga is abaabulaan reading clubs ay samaystaan oo ay mar walbaba buug ay ka munaaqashoodaan haddana aad arkaysaa taas waxay calaamad u tahay in dadkan ay noqdaan inay soomaaliya isbeddel badan ku socdo oo bulsho oraaheyd meesha ay ka ahayd hadda ay tahay mataqaanaa bulsho wax akhrisa inay soo socoto aniga mustaqbalka waxaan leeyahay rajo aad u weyn arrintaas waa garta abdoon rajada laakiin maxaa lagu beesgarayn karaa haddii iskuulladii ardayda la leeyahay dhalinyarada dadka yaryar iskuulka aadinay aad numberkooda u yaryahay haddii soomaali fara badan ee qurbaha imaado zaynab haddii ay leedahay inaad soo nooleeyaan rabaa si ay wax ugu qoro soomaalida faraha badan ee qurbaha tagtay maxaa lagu beesgaraynayaa in qoraalka iyo akhriska soomaalidu ay sii jeclaanayaan waxaa lagu beesgaraynayaa waxa ugu horeeya sida ay dadku u xiiseeyaan buugfeerada ama carwo bogaadka sanad walbaba la qabto waxay ku tusaysaa naadiyada akhriska siday dadka u xiiseynayaan waxaad arkaysaa qoraayada soomaaliyeed bugaag badan ay soo saaraan buugtan lama soo saari lahayn haddii cida akhrista aysan jirin dabcan soomaalidoo dhankaas ma wada gelin oo waxaa jira weli waxaa maqan tiro badan maqan oo meesha loo socdo waa meel aad u fog weeye laakiin anu waxaan is leeyahay waxaanan ku sheegaynahay maxamedow waxay bilowdeen 15 ilaa 18 sano ugu dambeysay waa horumarkan wuxuu bilowday ka hor ma jirin marka xawaaraha uu ku socdo marka aragto waa runtaa oo ma jiraan daytooyin hay-adaha waaweyn sida UNESCO kale ay sheegayaan inuu kor u kacay laakiin annagii ku dhex jirnay dareen weyn yani aad baan u dareemaynaa in kor u kacaas uu jiro zaynab aan soo gelayo zaynabay caruurta aad adigu wax u qorto sidee ku gaarsiisaa warkaas ma websiteya baa jira oo aad ku gaarsiisaan sidoo kalena ma samaysaan arrintan oo hadda abtidoon ka dhawaajiye ahayd reading clubska ama naadiya wax lagu akriyo si caruurta qurbaha joogtay adiga aad taarget garaynayso aad u ogaato siday wax u akhriyaan imika waqtigan la joogo xadiisan ku suganahay waxaan ka yara daba tegay un cabdiraxmaan baan siya xoojin un su-aashaadii uu ka jawaabayey imika hargeysa waxaa batay oo iyaguna soo kordhay goobihii buugta iibinaysay ee buugshafyada ahaa waxay leeyihiin cafe ku naban oo iyaguna aad fiirsan karto buugii xataa intaad adoo halkaa jooga aad iska aqrisan kartid marka taasina waxa weeyaan calaamad kale oo kutusaysa in buugtii ciddii iibsan karaysaana ay iibsanayso dadkii aksanayna inay dee soo badanayaan haddaanay baahida jireen
may furmi lahayn waxaa kaloo soo kordhaya madbacdihii baa iyaguna soo kordhaya oo ma garanaysaa iyaguna dee dad un bay dee suuq u yihiin tan caruurta haddaan usoo laabto markii aan xagga ingiriiska aan joogay dhulka ingiriiska aan joogay maxaan ku rahdaa buugtayda waxaan ku gaadhsiinayay waxay la socdeen habka maaragtay afka labaad waqtiga ayaa nagu soo koobmaya aad ayaan kaaga mahad celinayaa mar kale ayaan munaaqashoon doonaa abdoon aadna waa kuu mahad celinaya